markuu guursanay wiil saaxiibkiis buu la tashtay wuxuu yiri gabadhan ka waran oo dhan guurso laba la tashtay laba mid wuxuu yiri oraa gabadhan hada guursada biraday uur qaadasay ku soconay biraday uur qaada say ku soconay buu yiri magacayga waa Nuuriyo Macalin haysato 3 caruur ah waxaan kamid ahay ganacsatada xaafadda Islii أنا صدق جرأة أيام عوريامي مركا وسعدك بانجبي مركا هو ذي ويدرنتي إن سعون كرين مركا دكتور كستوى إلى التعاش مالك تبي جيسي أفق عوريان قرطو حلوم وذا إنه دمي هاي زائد بالله يسا أنا قد مركا ودوس عنا تعيال وين رجعين يجرين جيس بين يجرين وحنا حسوستا معلمين وإحنا بريس كم ذا إنه حتى سان يجرو حبا برنيسين waxa barnaysay malaha dadku ba bilaash u dhaweyseen isku joog guriyeen buu dhijire marka anaga aad bay arinta sayid baan nooxan taasdan dhiirigelin gelis inaan si fiican u aqrisana ko ciyaalkan lagu halay anaga ka hormar jirnay dhinaca akhriska anina waxaan dhijiray waxa ku guursana malaha iska dhaaf waan ka casin jiray rag zaid baan u carar jiray hata ma shukan jiray zaid baan u carar jiray marka niyadeyda marka dambe waxay soo gashay inaan guursado maadaama gabdhiir ana isla ciyaarina la shaqeysay saaxiibadii ay qof guriga geysteen marka dambe waxaan dhahay nasiibka kii ku shukaansan safartan hadidin iska ogolaaw waalidka la tasho waxay ku dhahaan bal sameey qofka duu hata ku shukaansado waxa moodaysa inuu kugu ciyaaray ninka soo daacad ka tahay adoo waxa iska dhaadhicina inuu kugu ciyaaray odigayga midaan idinka ilo odigayga markuu guursanay wiil saaxiibkiis buu la tashtay wuxuu yiri gabadhan ka waran oo dhan guurso laba la tashtay laba mid wuxuu yiri oraa gabadhan hada guursada biraday uur qaadasay ku soconay biraday uur qaada say ku soconay buu yiri marka waxaan dhahay taas ilaaha aqaanay subalahan la tashanaa saaxiibkii kale la ula tashtay marka wuxuu yiri ina kulli aan dal arkay yaa gabadhan ha ka harin guurso buu dhahay kii kale saaxiibkiis marka qofka taa markuu qofka naafada kala guurso dhaa qof kale la tashana maxaa kala kulmi doontaa